ها وانigii soo laabtay xigmadii wali sidii u burqanaysaa maxaan ka hadlayaa hadda midaan waxaan ka hadlayaa Soomaalinimo horta Ilaah baa wuxuu mahad ku leeyahay inuu iga dhigay ninkii Soomaali xigmada u siday anugu hadda xigmada u siday Soomaali ma khasaarayso taas Ilaah mahad ku leeyahay hadalkaygan miisaamana waxbaan ku kala sheegayaa waxaa ku hadlayn maayo inkastoo ay kaan doonto inaan wax ku hadlayn hayo midda soo socota horta wax si aad u daweysid wax si aad u daweysid waa inaad horta cudurkii taabatid meeshii bugtay waa inaad taabatid markaas kadib aad wax daweyn ka dhaa waa sidaa daraadeed aan uga soo horjeeday xukuumadii Cabdi Ilay iyo xukuumad kaste oo diida dadku in ay wax dhaliilaan haddii aad diidid dhaliil wax la dhaliilo haddii aad diidid waxaad diiday wax la hagaajiyo waa in aad dhaliisha ogolaatid dhaliishu waxa weeye waa kala bar ka wax hagaajinta dhaliishu waa kala barka wax hagaajinta haddii aysan dhaliili jirin waxba lama hagaajin karo horumarna ma jirayo adduunkana waxa weeyaan markaste waxa weeyaan waxbaa qabyo ah waxbaa dhiman adduunka markasta ma dhamaystirna meel kastoo aad joogtid ama waddan kastoo aad joogtid hadda Mareykanka iyo wadamada reer Yurub ee la dhaho way hormareen horumarkooda kaliya waxa uu ku salaysan yahay oo kali ah waa dhaliisha iyo inay og yihiin in wax kasta ay qabyo yihiin waxa weeyaan maalin kasta sanad kaste horumar baa la sameeyaa horumarna lama sameeyeen haddii aan la ogeyn in ay wax dhiman yihiin oo dhaliili jidho maalinta aad tirahdid dhaliil ma jidho maalinta aad tirahdid iyo wax kasta hagaagsan maalinta aad tirahdid waa maalinta aad diiday horumarka iyo maxaa la wax qabadka maalinta aad diiday weeye dhaliil haddaysan jirin horumar ma jiro horumarka waxaa ka horeysa dhaliisha marka dhaliilsha aan soo wadaa waxay tahay Soomaalinimadu horta waa alxamdulillaah hadda xilligan lagu jiro dadkoo dhan waxay jecel yihiin ama afkooda ka yeera waxyaalo wanaagsan oo ay la rabaan ummadda Soomaaliyeed maxaa la dhahaa Soomaalinimada jecel yihiin Soomaalinimada ay jecel yihiin Soomaalinimada ay jecel yihiin laakiin waa la wada haystaa waa lagu wada dhagan yahay waxa weeyaan dadku horey rabaan inay u socdaan oo qof hadda diidan oo ka soo horjeeda ma leh ama waa yar yihiin awal hore waxa weeyaan Soomaalinimada waa la cayn jiray Soomaalida waa la cayn jiray wax kasta oo xun Soomaali baa lagu waxa weeyaan Soomaalinimo ay ahaydba ummadda Soomaalida dhexdeeda Soomaalinimo ceeb bay ahayd iyo cay wax la isku caayo ninku dhaw Soomaali weeye waxa weeyaan cay bay ahayd waxa weeyaan wax laga dagaalamo laga xanaaqay ahayd Soomaali weeye marka lagu dhaho
laakiin hadda waanu maxaa la dhahaa aqbalnay. aqbalne in aanu diidno oo aan gadaal u noqono oo maaragtay aan inagu aan dhib isu abuurno waxba uma jirno. macnaheedu waxa weeye soomaalinimadu foundation ma laha ama dhidibba kuma taagna. waxa weeye dusha koray saaranta, xididda uma aasna u diida inay liiqliiqato ama inay dhacdo. udubba uma taagna iyo meel ma haysato soomaalinimadu. waxa ay soomaalidu ku xiran tahay, soomaalinimadu keliya waxay ku xiran tahay qofka oo qabiilkiisa la caayo. qofka qabiilkiisa wax laga sheego, qofkaas soomaalinimadii waa ka baxayaa. si sahlan buu soomaalinimada uga baxaya haddaa qabiilkiisa wax ka sheegtid. maxaa yeelay soomaalinimadii dhidibba kuma taagna, xididda ma leh. waa wax meel iska saaran. waxa weeyaan boor, sida boor meel saaran oo kale weeye. waa didaysaa. marka soomaali baan jeclahay, soomaali baan ahay, oo soomaali baan wax la rabaa. waxaa ka horeysa in aad soomaalinimada dhidibka u taagtid. taa ka horeysa waxa weeyaan in tawxiidka loo qabto weeye. soomaalinimada in tawxiidka loo qabto weeye oo laga dhiso caqiidada. soomaalinimada caqiidadeeda in la dhiso weeye, oo la adkeeyo oo dhidibada loo taago. maadaama aanu nahay soomaali, waa in aanu ugu adkaano soomaalinimada sidaan diinta ugu adagno oo kale. waa inay diinta nolol mid noqotaa. diinta si aan u difaacno oo aanan u ogolayn marnaba in wax laga sheego, waa inaan soomaalinimadana aan u difaacno oo aanan marnaba u ogolaan in wax laga sheego ama dhayal ha ahaado oo cayaar ha looga sheego iyo kaftanka xataa marka waxaa la dhahaa diinta laguma kaftami karo. waa inaan dhahno soomaalinimada wax yeelahayana laguma kaftami karo. waa inaanan cidna aanan ka yeelin. qofku xitaa hadduu ciyaarhayo in soomaalinimada wax laga sheego, in soomaalinimada la taabto, waa sida diinta aan u ilaalin oo kale waa inaan u ilaashano. maxaa yeelay waana soomaalinimadu waa diintayada. waxa weeye waa haddii la taabto soomaalinimada waa burburkayaga. waxa weeyaan sida diintu ay run noogu tahay baa soomaalinimada run noogu tahay. maxaa yeelay dee runi waa run. ma oran kadhid run beenaa jidha iyo runaa jirta. run been oo waxaa jirta soomaalinimo ah iyo run waxaa jirta run oo muslimnimo ah. ma aha, labadaba run weeye. soomaalinimadu waa run, muslimnimadu waa run. labadaba waa inaan isku sii u difaacno. waa laba run oo jidha. waa inaan ugu adkaano sida caqiidada. soomaalinimada caqiidanimada waa inay diin ahaan oo kale waa inay noo noqoto. maaha inaad noqotay part time soomaali iyo half inaad lug kula jidhid lugna ka baxsan tahay. waa inaad soomaalinimada si saxa u qaadato. iimaanka soomaalinimadu waa inuu kuu hanuuno. iimaankaaga soomaalinimada hadduu daciif yahay, waa in tawxiidka soomaalinimada lagu qabto. maxaa yeelay wixii intaa ka sokeeya waa khasaaro. waa inaan dhidibada u taagno. waa inaysan ahaanin soomaalinimadu wax dusha keliya saaran oo aan xididda ay ku istaagto aan lahayn oo ka celiya inay dhacdo. qofka soomaaliga ah soomaalinimada wax yar buu uga baxayaa. marka taas waa inaan iska ilaalino soomaalinimada sidii sahlan looga baxayo. soomaalinimada lagu kufrinhayo waa inaan iska dayno. luuqadaheena waa inaynu saxano. af soomaaliga waa inaanu saxano. waxaan ku wada hadlayno waa inaynu saxano. af soomaaliga la kufsanayo waa in la joojiyo. af soomaaliga lagu ciyaarahayo reer magaalnimo iyo horumar ma aha.
waa inaan soomaalinimada waa inaan adkayno. markaan ognahay waxaanu nahay baan garan karnaa meeshaan u soconno. markaan ogaano meeshaan ka nimid baan waxaan garan karnaa meeshaan u soconno. soomaalinimada ha la adkeeyo, xididada ha loo taago. waxa weeyaan arkaanay leedahay soomaalinimadu, 5 tiir bay leedahay. waa in soomaalinimada waa in la adkeeyo. waxaadan ka suuleyn oo aadan ka baxaynin inaad ka caradhid waa foolxumo, waa yaqyaqsi. soomaalinimada ha lagu faano, yaan laga cararin. kama tegaysid waxaad tahay ku faan. wax aad marnaba aan kaa suuleyn oo aadan ka fogaaneyn, waxaa kuu fiican in aad ku faantid oo aad ku kalsoonaatid oo aad iimaansatid. intaasaan kusoo gabagabaynahay midaan, waa ismaqli doonaa insha allah.